بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وإبراهيم عثمان ومر kale idinla wadaagaya muuqaal aan hadda ka hor muuqaalka kan kii ka horeeyay aan idinkula wadaagay isagoo live streaming ah waxaan isku dayi doonaa muuqaalada aan soo geli doono barnaamijyada qaar aan live ku soo jeedin doono inaan schedule u sameeyo oo dhalinyarada igu xidhan iyo ardayda igu xidhan ay ka faa'iideysan karaan wixii kale oo muuqaal aan ka soo diyaarin karana aan marka muuqaalo ka soo diyaarin karo marka muuqaalka mar rabo inuu dheeraado live isagoo aan wada daawan kartaan laakiin kan waan soo koobayaa marka maxadka magaciisa waa idin sheegay linkigiisana xagga sare ayaad ku arkaysaan ee qaybta commentiga MIT Open Courseware MIT Open Courseware waa maxadka dunida weyn laga barto tiknoolajiyadda waxaan leeyahay YouTube channel YouTube-kiisa kale markaa baadhaysaan waxaad ku qoraysaan MIT Open Courseware internet ku qoraysaan YouTube-kiisa marka kulliyada alaale kulliyadii aad uga baahnayd hadda waxaa ku xidhan oo kale 5.27 million subscribers buu leeyahay waan sii dhexgelayaa marka YouTube-kiisana playlistigan oo kale waa kulliyad allaale iyo kulliyadda ay duubeen oo aad ka rabtid inaad ka baratid xagana soo galaysaa marka kulliyadii website-ka markaad ka soo barato aad la soo degto maadadii muuqaaladoodana YouTube-kaad ka helaysaa weeye macno marka casharka iyo document-ina waa helaysaa isagoo muuqaalana waa helaysaa waan midaan jeclaan lahay in Soomaalida laga helo oo hadda jaamacadaha oo kale hadii ardayga ama iskuulada oo kale macalinka xagga dambe camera loo dhigi lahaa isagoo sharxaya duuban lahaa ardayga inuu documentiskii iyo fiidiyoyada hal mar wada helayo oo wax aad u qiimo badan laakiin intooda badan way iibiyaan muuqaalada noocaas oo kale ah si gooniyay u duubaan marka hadda waxaan raadinayaa kulliyaddaas oo ah kulliyad jaamacadaha lagu barto tusaale ahaan kulliyad alaale kulliyadda u baahan tahay raadinaysaa tusaale ahaan computer science oo kale dadka doonaya inay bartaan computer science-kan u raadinayaa gacan codkan ku duubaya gacan computer-ka ku isticmaalaya taasoo keenaysa qoraalka aan waqti geliyo waxaan oo dhan kulliyada computer-ka weeyaan hoos baan u sii socon waxa la kulliyada computer science-ka qaybtan doonayo raadinada computational science and engineering oo kale waan ku dhufanayaa kulliyadaas waa inaan barto syllabus-ka waa kulliyada manhajkeeda casharadeedii waxay inta ka kooban yihiin kooraska casharkiisa sharaxaadiisa xagga ka akhrisanaysaa marka hadda syllabus-kiisa hadaan galo waxaad arkaysaa in laga rabo isbuuciiba 3 xiisadood oo hal saac soconaya hoos ma degaya casharadan soo eegayaa hadda examskii oo dhan sidoo uu sheegayaa grade-ka oo kale xaggan uu sheegayaa marka casharka hadaan rabo inaan soo dhan garaysto hoos tan baan iman midigta download course baan leeyahay kulliyadan oo dhan baan la soo degayaa assignments-koodii waa kuwan oo mid baa download garaysan kartaa sidoo kale examska imtixaanaadkiisa xitaa waa wataa waxyaabaan la yaabay weeyaan lecture-ka cashar walba note-ka laga reebayna waa kan note-kiisa casharadiina waa kuwan marka download baan leedahay waxa ku soo wada degaya marka download dhahdo macnaheedu waxay tahay okay download baan leeyahay hadda wuu soo degayaa kulliyadaas oo dhan baa ku soo degaysa oo assignment-keedii imtixaanaadkeedii lecture-keedii wixii baa wadataa marka 41 megabyte wax weyn maaha muuqaal yar oo TikTok-ta kala soo degtay baa ka badnaan kara marka internet-ka dheeftiisu waa waxaan la tirin karin qofba soo isticmaalay ku xidhan tahay website-kan soo tijaabiya qof walba kulliyad alaale kulliyada u baahantay waa ka raadin kartaa soo doon garaysan kartaa imtixaanaadkaaga iyo assignments-kaaga kolkaad aad u ka shaqaysaa wixii barato baad waxaad samayn kartaa inaad naftaada ka farxiso aad meelaha hodheelada fiican iyo habeen aad nafta soo cashaysiiso ama si fiican soo waqti soo qaadato marka halkan computational science and engineering-ka waxaan isku daynaa bal YouTube-ku ay leeyihiin iyadoo kulliyadan ah cashar ahaan inaynu uga soo helno marka YouTube-koodan tagayaa iyadii duuban baan isku dayaa inaan la research ayaan leeyahay way sababa arkaysaan marka halkan waxa iga soo baxay casharkii oo duuban oo la sharxayo computational science engineering casharadii oo dhan baad helaysaa oo kuwan iyagii oo dhan baad akhrisan marka kulliyadihii oo dhan sidan u duuban yihiin kulliyad walba marka YouTube-keeda aad ka raadsan macalinka iyo xaadiraya samuuradii soo taagan kan aad ka akhrisanaysaa casharadii oo isku xiga saadooda aragtaan marka waxaan oran karaa kulliyadahan meesha ku jira markaad barato soo lood garasto maqli muuqaalba oo helaysaa waxaan raadinayaa kulliyada la yiraahdo politics markaan raadiyo marka website-kan wuxuu ii soo saaray hadeer kulliyada la yiraahdo introduction to American politics sidoo kale politics and religion tanoo kale haddaan galo aan rabo inaan la soo dego aan barto aqoonta siyaasadda iyo diinta oo kale syllabus-keeda waa raadin kartaa halkan waxaad aragtaan course description-ku wuxuu sharxayaa waxay tahay kulliyadani syllabus-ka markaan rabo course-kan marka la dhiganayo imisa cashar bay ka kooban tahay oo kale hadda waxaa lagu leeyahay isbuucii mar baad dhiganaysaa waana 2 saacadood
activity-ga lagaa rabana waa kan warqadihii iyo kalaaskii iyo inaad soo xaadirto. Casharadu marka waa kuwan intaasoo cashar baad la soo degaysaa. Markaas kooraska download garaysanayso qaybta midigta hoos baad usoo degaysaa. waxaad leedahay download course kadib xitaa assignment-giisii wuu kuu soo degayaa. kadib waxaad leedahay download course horaan anu kan ilo soo degay okay baan leeyahay start download sidan igu soo degaya. marka waxaan odhan karaa kuliyaddan 4 sano aad jaamacad soo fadhi lahayd weliba tan quality-geeda tayadeedu way sareeyaan waa Mareykan weeyaan professor PhD baad wax dhiga. marka iyadii waa la soo degtay documentskoodii laga soo faadaysto muuqaalka ku xiga inta ku kulmi doono Ibrahim Ismail Cabdi Nuur kaga tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.